halkan waa deegaanka Helaari oo ka mid ah deegaanada maanta howlgallada ay ka dhaceen oo ciidamada xoogga ka dulqaadeen shacabka dhibaatadii cadowga ay halkan ka geysan jireen. ciidamada ayaa deegaankan ku burburiyay saldhigyo nabadiidka ay ku lahaayeen halkan, waxaana nabadiidka loogu geystay khasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba leh, iyadoona ciidamada ay la wareegeen taliskii halkan ku yeelay. saraakiisha hogaaminaysay howlgalladan ayaa shacabka kula hadlay deegaanadii maanta howlgallada ay ka dhaceen, gaar ahaan deegaanada Helaari, Dhobley iyo deegaanka Horeyna oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaaladan Baardhede, iyaguna u sheegay inay ku noolaan doonaan nolol fiican ay ka dulqaadayaan dhibaatada cadowga. annagu waxaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan la dagaalamaynaa kooxaha nabadiidka al-shabaab ma garanaysaan ku beeraha qodanaysaan idintii inaad qodataan oo inaad reerihiin nabad ku joogtaan idintii oo adinkiina caawaya odayaashiina sidoo idintii kuwaasaan la dagaalamaynaa si idinkuna aad u heshaan xorriyad u heshaan baahidiina aad uga hadashaan dawladda aad u sheegtaan waxaad u baahan tihiin ayaduna idiin soo gaarsiis sidaasaan idinku masaadkanaga annaga iyo waxaa weeyaan waajibaadkanaga celisa intaa taasuu qayb ka yahay haddii ilaahay hadda waa idila jeena waa idiin nimid deeqa fiican waa idin soo gaarsiin doonaa haddii ilaahay laakiin waa inaad sheegtaan oo dhahdaan cadowgu waa kan ana laga qabto kuwaana na dilayeen ma garateen haddaan saas la yeelin oo inniga idinkaan isgarabsan annaga waxaana idin xoog dalka Soomaaliyeed calankaasaan u dhaaranay dadka shacabka inaan u dagaalanaan jecelnahay ayaguna waxaa weeye si fiican ay ku noolaadaan haddii marka idinka aadan masaacidin doorkiina aadan ka qaadan dowladnimada wanaagana lama helay idinkuna waxaad u baahantiin heli maysaan waxaad markaa cadowga inaad soo sheegtaan annaguna waxaa waxaad u baahantiin inaan soo gaarsiin haddii ilaahay ya haddii unuga bahal mahadboga gashan iibahal maxaa tiri haddii bahal mahadboga gashan soo kuma qaninaya waa gashanina dee sheega disaan ninkaga dilna kabayn xaraad u noqotaan abaandulaha ururka 49aad ee magaaladan Baardhede Xidigle Maxamed Weli Cabdullaahi Yuusuf ayaa warbaahinta la wadaagay khasaaraha cadowga loogu geystay inta ay howlgalladan socdeen. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxaan ka howlgalnay deegaana iyo al-shabaab ku dhuumalaysan jireen deegaankaas oo hadda meeshaan ka hadlayno ah meel la yiraahdo Helaari u jirta baarar kilomitir 55 kilomitir kaga beegan dhinaca waqooyi Helaari iyo Buulo Culuwaan ka howlgalnay oo meel al-shabaab ku dhuumalaysan jireen bay ahayd kana dhibaateyn jireen ummadda Soomaaliyeed inta badan dhibaatooyinka deegaankan baarar ku xiran meelaha ay ka meeleeyaan bay ahayd howlkan wuxuu bilowday abaar xalas ilaa 2 saac habeenimo hadda oo xilliga arkaysaan aan wili wuu soconayaa hub ayaan ka soo qabanay sidoo kale ilaa 5 qori gaaraya saadkoodii macal raashinkii waxaasna gabarida ayaan ku wadnaa hadeer. Dhamme Cali Maxamed Xasan taliyaha ciidamada ururka 49aad ee magaaladan Baardhede ayaa dhankiisa sheegay in cadowga lagu wiiqay awoodooda howlgalladii maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay deegaanada ay shacabka ku dhibaateen jireen cadowga Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed waxa ilaahay ma hadiisa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay si direction ay ugu howlgalayaan goob kasta iyo meel kasta oo guud gobolada Soomaaliya guud si guud loo howlgalayo shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dawladooda la shaqeeyaan waxa xoga ah oo cadowga ah inay la wadaagaan ilaahay baa ma hadis kale cadowga marka laga reebo dhagarta iyo qaraxyada ay sameeyaan markii laga reebo uma barbar dhigi karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana meel kasto ay joogaan waa laga saarayaa geed hostis saad ogtihiin baad anaga ciidamadannada lug bay ahaayeen saaki tagay habeenimo tagay waxay ahaayeen ciidan lug ah waxay wateen dameere iyo geedid lug ah ay wateen geed kasto harsadaan waa ka saari doonaa waxaan ku baacsan doonaa lug Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka